ودنيقو مسيحدو ورتها أفميشان مولا عنكاريو وحكما أبوري ودنيقو مسيحدو ولها أفميشان ولا عنكاريو وحكما أبوري وهلك عيدا ويه وكيلك علنك ويه وحون ديدا ويه وودد سنغادها وهلك عيدا ويه وكيلك علنك ويه وحون ديدا ويه وودد سنغادها لبا وكيلها متواشى وليقين لبا وكيلها متواشى وليقين يوعد فرايو وانتو بوايانا ولا اللي مكدونين يوعد فرايو وانتو بوايانا ولا اللي مكدونين ورهان أوركان جماعة ودني حريته قادية هذه مالك أي هودلت جودها بالوضع waxay ku baaqaysaa mar walba inay si dhab ah ula shaqeynayso dawladda deegaanka ka jirta taasna waxa weeyaan waxaan u aragnaa in ay lagama maarmaan tahay sababtoo ah waxay qayb ka noqonaysaa isku duubnaanta ummadda iyo in dantii ummadda ay lahayd iyo xuquuqdii ummadda laga soo ridiyay Itoobiya loo wada dhanaado oo markaas ay suuragal noqoto in laga soo rito ee furo u tahay dadka wada shaqeynta meel fiican bay maraysaa waan la shaqeynaynaa inta ay dalka ummadda ka shaqeynayaan waxaan ku baaqaynaa mar walba in siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa ahdaafta iyo mabaadi'da waa lagu kala duwanaan karaa laakiin danta ummadda laguma kala duwanaan karo haddii aan macnihii aan ujeeddo kale hadii jirin laguma kala duwanaan karo in dadkan ay xuquuqdooda helaan in dadkan ay xorriyaddooda helaan in dadkan ay horumarkooda helaan in maaragtay xurmadooda iyo sharaftooda ay helaan oo adkaystaan laguma kala duwanaan karo qofka kaliya inay ka duwanaan kara waxa weeye waa qof isagu ujeedda iyo dan gaar ah taasina waa wixii ina soo baabiyey ee aan u baahannahay inaan ka gudubno weeyaan dadka wada shaqeyntu waa furaha weeyaan qodobka kaa xiga waxa weeye Itoobiya isbeddelo fara badan baa ka socda horta marka koowaad jabhadda wadaniga xorriyadda ogaadeenaya shalay waxay u halgamaysay inay ummaddan ay ka talin buuxda gaarsiiso maanta kii bay u halgamaysaa hadafkaas isagu isma bedelin fartiisii uu taagan yahay waxa kaliya isbedelay waxa weeye qaabkii lagu raadinayay oo maanta ay suuragal inoo noqotay inaan qaab siyaasadeed ku raadino waxa isbedelay intaas weeyaan laakiin hadafkii iyo ujeeddadii la lahaa iyo meesha aan higsanaynay wax iska bedelay ma jiraan saa darteed waxa weeye shalay haddii aad jabhadda ku garab taagnaydeen iyadoo dagaal ku jirta in ay hadafkaa xaqiijisaan ku garab taagnaydeen maantana waa laga maarmaan oo waa daruuri inaad ku garab istaagtaan in ay hadafkii isaga ahaa xaqiijiso kaas marka waxaa loo barayaa maanta waddan nabadeed baa loo marayaa sidii hore uu ka dhib yar yahay dhinac marka laga eego uu ka dhib yar yahay oo waxaa weeye maanta qof aad uga cabsanaysa inaad ra'yigaaga cabirto ugama cabsanaysid armaan lagu dilaa ama armaan lagu xidhaa ama xuquuq aad lahayd macnihii laga amardahaa ugama cabsanaysid kol haddii ay taas tahay waxaa weeye waxaad xor u tahay inaad fikirkaaga dhiibato waxaad xor u tahay inaad wixii khalad ah ee dowdar ah aad ka daaya tidhaahdo maya aad kaaco marka waxaa weeye way si dhinaca markii laga fiiriyo way ka sahlan tahay dhinaca kale markii laga fiiriyo way ka adag tahay cadowga lama yaqaano
culeysyo fara badan laakiin waxaan ku caloolsanahay in aan ka soo bixi doono haddii la yidhaha xilkaa nala saaray urur ahaan aan ka soo bixi doono ururka jabhadda wadada xoreynta ogaadeen waxaa weeyaan maadaama oo ay qaaday xilka ah inay ummadda xaqoodii inay raadiso waxaa weeyaan waxay nambarwan ka dhiganaysaa isku duubnaanteeday nambarwan ka dhiganaysaa way kow ka dhiganaysaa marka haddayna iyadu isku duubnayn ummad wax uma qaban karo cid kala qaybin kartaana ma jiro wax cid badan baa isku dayeysa oo weliba cadowga nagi shalay u badan baa isku dayaya inay kala qaybiyaan kala qaybin ma iman doonto wixii sixitaan u baahana annagoo urur ah baan saxayna haddii la yidhaahdo waanan sidaan usoo sixi jirin baan usoo saxaynaa shuruuc baan leenahay qawaaniin iyo xeerar lagu kala baxaan leenahay kuwaasaan wixii sixitaan u baahan ku saxaynaa laakiin waa urur midaysan oo ku midaysan danta ummadda inuu raadiyo ku midaysan weeye una midaysnaan doona haddii ilaha yidhaahdo intaa markaan ka gudbo waxaa weeyaan isbedello siyaasadeed baa ka socday waa lagama maarmaan dadkeennu yar iyo weynba inay arrintaas ogaadaan oo ay u tooghayaan isbedelada ka socda waxaa weeye waxaad la socotaan tan iyo laga soo bilaabay sagaashameeyadii waxaynu haysanay wax lagu magacaabo ismaamul etoobiyana waxay ku dhaqantaa nidaamka la yidhahdo federaalku waxaa weeyaan in qowmiyadu waliba iyadu ay isku qowmiyadaasi waxaa weeye arrimaheeda gudaha iyadaa maamulanaysa waxbarashadeeda iyadaa maamulanaysa caafimaadkeeda waxeeda deegaankeeda iyadaa maamulanaysa dowladdeeda iyadaa dooranaysa nidaamka noocaasa waa lagu soo dhaqmayay laakiin sida uu yahay looma dabaqaynin oo runtii ma aynaan ku haysanin wixii sharcigu inoo qorayo ma aynaan ku haysanin laakiin haykalka noocaasa ama jiritaanka noocaasa wuxuu ahaa midka soo jiray tan iyo dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyey soo jiray buu ahaa etoobiya ay ku dhaqmaysay dastuurkeedu qeexayay buu ahaa nidaamka noocaasa waxaa jira xoogag siyaasadeed oo doonaya hadday bedelaan etoobiya labay u qaybsanay waxay ahayd dad aaminsan nidaamka ayakatalida iyo federaalka aaminsan iyo qolo aaminsan in etoobiya waxa la yidhaahdo aan dhinan ama maaragtay etoobiya waa mid hal ilaah leh hal dowlad leh hal luqad leh xoogag siyaasadeed oo nooca aaminsan baa jira xoogagii siyaasadeed waa laga guulaystay dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyey laakiin hadda dib bay usoo kaceen waxayna hadda isku dayayaan in maaragtay dib loogu noqdo nidaamka noocaas ah ay kelida wax walba kelida ay ahayn dib loogu noqdo taas hadda way socdaan barnaamijyadaasi xisbiga talada haya ee hadda soomaalida xisbiga talada haya waxaa suuragal ah arrintaasi inay shalfato oo in la baabi'iyaaba suuragal ah waa haddii uu oggolaado inuu ku fiiro ururka cusub ee maaragtay etoobiya oo dhan loo samaynayo EPRDF bedele si ay oggolaadaan waxay noqonayaan iyagu daaqasika waxay noqonayaan marka xisbigaas etoobiya ku biirayaan arrintaasi khatarteeday leedahay waa arrin soo afjaraysa nidaamkii ismaamulka iyo maaragtay shuruucda inay ayagooda ka tashadaan oo iyagu ay ismaamulaan marka arrintaas annagu ka urur ahaan waan diidnay mowqifkana waan gaarsiinay dowladda waana diidaynaa waxaana ku dadaalaynaa inaanu samayno xulufo u dhiganta xulufada ay samaynayaan iyagu etoobiyaanka mid u dhigantoo aaminsan in ummaduhu ay ayagooda ka tashadaan taas baanu hormuud ka noqon doonaa haddii la yidhaahdo marka idinkuna shacab ahaan waxaa weeyaan inaad arrintaa ogaataan arrintaas waxaa weeye halkan shacabkaa dowladka yani etoobiya shalay haddii qori lagu caburinaysa maanta qorigii ma jiro siyaasad baa jirta annagaa halkan ka dowladda wax innagu aynaan raalli ka ahayn inooga yeeli karay waa inuu qof walba taa ogaado weeyaan adaa suldaanka ah halkan adaa ugaadka ah adaa mastarka ah nin ka yimid sabab ama meel ka sheegay kuma yeelin karo siyaasadda aad ku qanacdo maaragtay aad u aragta dantaada inay ka tarjumayso taa un baad qaadanaysaa ta kalena waad diidaysaa qorina layskuma muquulinayo marka taas waa inaad ogaataan oo toog haysaan intaasaan rabay inaan soo gaarsiiyo aad iyo aad baad umahadsan